Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu mudanayaal iyo marwooyin mid yar iyo mid weyn dhammaan dadka sharafta leh ee ku xidhan kanaalkeena waxaan maanta jeclaystay in aan idinla wadaago dhowr qodob kuwaas oo ku saabsan sida qof kalsooni loo siiyo laakiin inta aynan u gudagelin qaabka qof kalsooni loo siiyo waxa isweydiin leh waa maxay kalsooni kalsoonidu waa is-aamineed taas oo ka dhaxaysa laba qof iyo in ka badan kalsoonidu waa tiirka ama udubdhaxaadka ugu awooda badan ee ku taagan yahay xidhiidhi walba kalsoonidu waa waxa ee qofka ku abuura kuna dirqiya in uu qofka naftiisa u hibeeyo ruux kale waxaan jeclahay in aad ila dareentay waxa ay tahay kalsooni haddaba aynu u gudagalno qodobadeenna kow ka warhayn marka aad rabtid in aad qof kalsooni siisid waa in aad ka warhaysid kalsoonidu waxay ku kobcdaa iska warqabka joogtada ah markaa ruux si joogto ah uga warhaysid xaaladihiisana oo la socotid waxaa ruuxa ku abuurmaya kalsooni weyn oo uu ku qaadayo labo naxariis lahow naxariistu waa waxa ugu weyn uguna muhiimsan naxariistu waa waxa keliya ee qulubta noolaha lagu hanto bini'aadmigu maaha oo keliya kuwa dareema naxariista loo muujiyo bal xitaa xayawaanaadka dunida ku nooli way dareemaan cidda naxariista u muujisa miyaadan xusuusnayn maahmaahda caanka ahayd ee odhanaysay nafi naf u roon raacday haddaba ogow mar kasta oo aad naxariis u muujiso ruux inay kalsoonidiisu siyaadayso tusaale ahaan ruuxa markuu ku jiro xaalad murugo leh uuna dareemayo cidhiidhi waxna uu tabayo waxa uu u baahan yahay ruux garab qabta murugadana la qaybsada farxaddana dareensiiya kuna dhiirigeliya inuu ka bixi doono xaaladahan cakirin haddaba sidaad farxadda oola qaybsan jirtay xilliyada nolosha quruxda badnayd ula qaybsa murugadana xilliyada madow saddex bogaadintu waa wax iska fudud laakiin dadka qaar ayaa si la yaab leh uga cabsada bogaadinta aad ruux bogaadinaysid kaa dhigi mayso mid daciif ah ama mid dhib badan in aad tahay qof walba waxa uu ku raaxaystaa inuu helo bogaadin waxayna dareensiisaa bogaadinta ruuxa wanaagga naftiisa ku bogaadinta saaxiibka aad ku bogaadinaysid waxyaabo iska caadi ah waxay ka dhigi doontaa inay dareensiiso inuu kasii fiicnaado sidii uu ahaa waana mid aad u awood badan oo hal bogaadin ah ayaa bedeli karta sida qof isku arko oo uu dareemo kalsooni in ka badan cidda uu yahay afar qaado wakhti aad ku dhegaysato qof kasta waxa uu la halgamayaa wax markaad qof aqoon dheer u yeelato way fudud tahay in aad aragto marka wax dhibayaan hase yeeshee dadku ma jecla inay ka hadlaan dhibaatooyinkooda iyagoo ka baqaya in loo arko inay is-hoos dhigayaan ama cabanayaan dadku waxay u baahan yihiin inay ka hadlaan arrimahooda si ay iyagu uga shaqeeyaan sidaas daraaddeed bilaabista wada sheekaysiga iyo dhab ahaan dhegaysigoodu waxay noqon kartaa kaalmo weyn wadahadalladan waxay u baahan yihiin inay noqdaan aag aan xukun lahayn si saaxiibadaadu u dareemaan ammaan marka ay kula hadlayaan tani uma baahna inay noqoto wakhti lagu hagaajiyo dhibaatooyinkooda ama lagu dhaleeceeyo xukuumadooda waa wakhtigii dhibaatooyinkooda ka saari lahaayeen xabadkooda shan taageer hogaamintooda kubcinta xirfadaha hogaaminta waxay muhiim u tahay nolosha laakiin dad aad u tiro badan ayaa dhib ku qaba inay isku arkaan hogaamiye fursadaha hogaamintu waxay dhacaan marar badan in ka badan inta aad u malaynayso ka faa'iidayso oo saaxiibada ka caawi in ay sidaas oo kala sameeyaan inaad naftaada iyo saaxiibada u soo jeedisid in aad wax samaysaan dhammaadka toddobaadkan ayaa kaa dhigaya hogaamiyaha fikirkaas ka sokow kobcinta xirfadahaaga hogaamineed waxaad taageeri kartaa dadka kale markay ku jiraan kaalin hogaamineed muuji dhacdooyin muhiim ah oo bixi taageero cad iyo jawaab celin toosan haddii aad leedahay saaxiib xishood badan ama ku dadaala inuu ka fogaado hogaaminta si fursad uu ku gaari karo go'aan u fududaynaya hamigiisa lix ku qaado cidda ay yihiin waxaa laga yaabaa saaxiibadaada inay la halgamayaan ogaanshaha cidda ay yihiin taasina waa iska caadi saaxiib ahaan waa shaqadaada inaad aqbasho oo aad iyaga taageerto noqo mid firfircoon oo u dabaaldega guulaha ay gaadhaan taageer xilliyada adag oo noqo saaxiib wanaagsan qayb ka mid ah aqbalaadaada qofeed ayaa u taagan iyaga ma jirto wax u burburin kara kalsoonida qofka sida u xoog sheegashadaadu u burburiso kalsoonida marka ay dhacdo iyada oo aan liska ilaalinin waxaan qayb ka nahay dhibaatada ha noqonin uun goobjooge ka qayb qaado oo caawi waxa aynu maraynaa gunti iyo gebagabadii haddaba dhegaystaha sharafta lahow haddii aad ka heshay qodobadan aan kor ku soo xusnay kuna cajabiyeen fadlan like saar muuqaalka commentina noogu reeb afkaartaada siina sheergaree si ay asxaab badan u gaadhaan subscribe na saar kanaalka taasi waxa ay noo tahay dhiirigelin waad ku mahadsan